مؤسسة أم القرى. بسم الله. أولا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan macallimiinta iyo ardada iyo maamuliinta qaybahooda kala duwan marti sharafta ka soo qayb gashay xalfadan qiimaha badan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. bacda salaan magacaygu waa maxamed nuur sheekdoon ahna arday ka tirsan ardada dhigata iskuulka umul qura ahna musharax gudoomiye sanada 2022 أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى يا مهدله ساكي نسو جيدي وإنت نسو كلمسي وحنا سلامة أردية دمانتودا سيو كل فديان مامرياشا هالوذينها دمان قب دمان هالوذينها ماشي جوغان وان سلامة يا أنيق وحنا أسامة محمد سعيد وحنا هاي مشرح اسكسو شرحي حلكة isku soo sharaxay xilka hogaamiyaha ardayda Qaadir Xasan una sharaxan musharax gudoomiye waxaan halkan ka soo jeedi doonaa waxyaabaha aan qaban doono kor inta aan soo jeedin anagu waxa ka socda fasalka form 3 waxaan u sharaxanahay musharax gudoomiye sanadkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan macallimiinta maamulayaasha iyo ardayda iyo howlwaleedada waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Iglaal Cismaan Nuur dhigatana iskuulka Umul Qura gaar ahaan fasalka form 3 waxaan ahay ex gudoomiye ku-xigeenkii anigu waxaan doonayaa in aan dhammaystiro ballanqaadyadii fadlan xildhibaan codkaagu waa ii muhiim si aan u dhammaystiro waxqabadkeygii hore. bismillaah anigoo magacaygu yahay Sundus Xasan Salaad kana socda fasalka 7B waxaan maanta meeshan u taaganahay in aan noqdo gudoomiye ku-xigeen. bismillaah dhammaan waan idin salaamay maamuliinteeda macallimiinteeda iyo ardayda sharafta lahabo oo maanta ka soo qayb gashay bandhigan barnaamijkan waxaan rabaa maanta in halkan aan u soo istaagay wax kale ma ahan in aan noqdo gudoomiye ku-xigeen